munaasabadana ay ku qalin jabinayeen ardayda wax ka dhigata jaamacadda Home University ee magaalada Hargeysa ayaa munaasabad lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. munaasabadaas ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale, maamulka macallimiinta, waalidiin iyo boqolaal ka mid ah ardaydii halkaasi ku qalin jabinaysay. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Home University oo ka warramay jaamacadda Home University marxaladaha ay soo martay iyo waliba xilligii la aasaasay, ardaydana ugu duceeyay in Ilaahay uu ku anfaco cilmiga ay barteen. waxaan dib u leeyahay maalintii faraca jaamacadda Home ee Hargeysa Somaliland. maalintaa waxay ahayd maalin aan rajaynaynay inaan guula ka gaarno barnaamijkan wado. horey baan u sheegay oo waxay ahayd taariikh ka soo bilaabatay inteedii qaxday, weliba gaar ahaan sida loo kala fogeysanaa loo sii kala cararee. anagu waxaan ahaa kuwa meel walba gariintay oo siduu cararaya ilaa Kanada ka soo jeestay. halkaan markaan joognay waxaan isnay maxaad qabataan? wax badan baa loo baahnaa, laakiin xoogga waxaan saarnay oo ku fikiray haddii dadka la dhiso, aqoonta laga dhiso, iyaga ayaa dad la dhisaya. ilaahay mahadii bay ahayd inaan markaa aan sidaa ku bilowno. maalin waxay ahayd himilo aan hiigsanayno maanta iyo shalay iyo jimcadiina ka horeeyey. anigu waxay ahayd inuu duceeyihii meesha waa diin duceeyey ama idin aqbalo. intaasi kadib waxaa ka hadlay iyaguna qaar ka mid ah waalidiintii ay ardaydoodu ka qalin jabinayeen jaamacadda Home University ee magaalada Hargeysa. waa ay farxad iyadoo maanta ay quradaydi ka qalin jabinaysa halkan. aad iyo aad baan idin hambalyeynaya anigoo afka waalidiinta ku hadlaya. waxaan idin leeyahay hambaliyo baan idin leeyahay. waxaan idinku dardaarayaa oo keliya uun maadaama aan muddo dheer soo tabcayseen oo aad soo wadeen muddo dheer oo waalidka idinla soo tabcayay inaydaan halkaa kaga hadhin ee dalkiina iyo dadkiina aad idinku ku samaysaan inaad cilmiga aad barateen uga faa'iidaysaan. aad iyo aad baa mahadsantihiin. geesta kale ayaguna waxaa halkaasi ku soo bandhigay cilmigii la baray qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Home University ee magaalada Hargeysa. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale oo ardaydani hambalyeeyay isla mar ahaantaasina ardayda ku dhiirigeliyay inay cilmigan ay bartaan ay dadkooda wax ugu qabtaan, asagoona halkaasi shahaadooyin ku guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay jaamacadda Home University. waxay culimada islaamku sheegaan markii ilaahay nabi muuse soo diray ee fircoon loo soo diray mucjisooyinkii uu watay ushii iyo gacantiisii. waktigaana sixirku wax aad aqoontiisu u badan tahay oo had iyo jeer ilaahay subxaanahu watacaala xikmadihiisa waxaa ka mid a marba waxa waktigaasi aad u aawan mucjiso u eg baa nebiga waktigaa la soo diray loo dhiibaa. waktigaa nebi muuse sixirkaa aawanaa. waktigii nebi ciise aqoonta caafimaadka aad u sarraysay oo markaasaa la keenay nebi mucjisadiisii tahay aqoon caafimaad oo dee cidiba haysa kadib qofkii dhintay inuu kacaygaalo ilaahay ku noolo uu barastii daweeyo dhalaantii daweeyo wixii. inta aan ka ogahay aan ka aqaanana jaamacaddani tiro yar ka soo saartay tayadeedu way sarraysaa. intaan ka arkay arday ee ka soo baxaysay sanadkii baqaaya kala jebinayeen oo lagu hambalyeynaa barka soo gajiibinuu aqoonta ayuuska. waa Maxamed Xuseen Ibraahim, telefishinka Som News TV magaalada Hargeysa.